kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantii madaawadyaal kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo ay la yeelanayno safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee masar ahna wakiilka joogtada ee ururka jaamacadda carabta danjir ilyas sheekh cumar. marka hore saacad safiir waxaan kaaga mahadcelinaynaa fursadda qaaliga ah siisa telefishinka qaranka. kusoo dhawaada farxad gaar ay tahay maanta in ay soo booqataan, waana runtii u mahadcelinayaa bahda saxaafadda gaar ahaan tv-ga SNTV oo had iyo jeerba runtii tabiya akhbaarta ay leedahay maaragtay dowladda iyo dhammaan dhacdooyinka ka dhaca dalka Soomaaliya. marka aad baan idinkaga mahadcelinayaa booqashadiina. waa mahadsantahay mar labaad mar saddexaad. saacad safiir ee warbixin kooban iyo mid gudba naga sii adeegyada ay safaaradda u qabataan iyo bixiso. sidaad ka warhaysaan, safaaraddu waxay matashaa dalka, waxay bixisaa waxa adeeg u baahan yahay muwaadinka Soomaaliyeed, ha noqdo mid markaa dhashay, ha noqdo mid lugihii ku imaanaya adeeg qaadanaya, ama ha noqdo mid geeriga ku timid oo runtii u baahan in runtii loo dhammaystiro adeegu markaa u baahnaa. safaaraddu waxay matalaysaa dalka Soomaaliya oo dhan. adeeg kasta muwaadinka Soomaaliyeed uu uga baahan yahay dalkiisii ayay waxay u tahay mid u fududeynaysa, iyo adeega dalka uu joogo markaa wadanka uu joogo uu uga baahan yahay adeeg ayay safaaraddu waxay u fududeynaysaa muwaadinka sidii ku heli lahaa adeega inuu helo. safaaraddu sideedaba waa dowlad yar oo ay matalaysa dalkaagii. danjiraha wuxuu wakiil ka yahay uu matalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya. dhammaan diblomaasiyiinta kale joogana waxay matalayaan hay-ada ka tirsan dalka. sida haddaan usoo qaadno, waxaa jooga u qaybsanaha xafiiska waxbarashada, waxaa joogo qusul oo runtii mas-uul ka ah arrimaha jaaliyadda, waxaa kaloo nala joogo u qaybsanaha arrimaha ganacsiga, waxaa kaloo nala joogo u qaybsamaha arrimaha militariga. dhammaan marka la isku daro waxay ka shaqeynayaan waxay tahay in ay u fududeeyaan muwaadinka Soomaaliyeed adeega u baahan yahay inuu helo. waxay kaloo safaaraddaani runtii iyaduna qayb weyn ka tahay ay matasho waxa weeye ergada gaarka ah ee jaamacadda carabta, iyaduna runtii ka shaqeynaysa matalaadda Soomaaliya oo kursiga ay ku leedahay jaamacadda carabta iyo dhammaan adeeg inoogu xiran jaamacadda carabta. saad ka warhaysaan, inta badan aad aragtaan tv-yada iyo xog ahaan baad ugu warhaysaan, Soomaaliya waa xubin aad u firfircoon jaamacadda carabta. jaamacadda carabtu waxyaalaha aan runtii ka wada shaqeyn waxa weeye waa waxa annaga iyo naga dhexeeya walaalaheena carbeed ayaan mar walba ka wada shaqeynaa. qadayaadka runtii masiiriga ah ee runtii la gaarayo ama go-aan laga gaarayo ayaa miiska lasoo saaraa. Soomaaliyana waxay mar kasta tahay runtii waa dowlad dhexdhexaad u ah qadayaadka walaalaheena carbeed. taariikh horey Soomaaliya leedahay oo laga warhayo in ay tahay mawaaqiifteedii tahay mawaaqiif aan meelna u exanayno, mawaaqiif thaabit ah. xiriir intee leeg ayaa ka dhexeeya dalkeena Soomaaliya iyo dalkan aad safiir ka tahay Masar? wallaahi xiriirka Soomaaliya Masar waxa ay aad u fiicnaan lahayd waraysi dheer ah oo loogu talagalay programma in laga sameeyo. Soomaaliya iyo Masar xiriir dheer baa ka dhexeyn jiray kana dhexeeya. waa xiriir soo bilowday 5,000 sano ka hor taariikh ahaan markii hadda laga sheekeynayo. waa xilligii Fircoon baa waxa leedahay Masaaridu waxay kasoo adeegan jireen mantiqada la yiraahdo Puntland. mantiqada Puntland waa magaca Soomaaliya markaa la dhihi jiray ama dhulkii Soomaalida la dhihi jiray. taariikhda fog ilaa maanta aan kula hadlay xiriir soo jireen baa jiray. dalka Masar iyo dalka Soomaaliya waa laba dal oo walaalo ah, ay mideeyaan 3 astaan. astaanta koowaad ay tahay carabnimo, astaanta labaad ay tahay afrikaanimo, astaanta saddexaad ay tahay islaamnimo. Masar iyo Soomaaliya waxyaalo badan oo runtii aan maanta kusoo koobi karin waraysigan ayaa runtii soo dhexmaray, laakiin waa laba dal walaal oo xiriirkoodu aad u xoog yahay strongna. waata saacad safiir safaaradda oo hadda sanad ku dhawaad aad joogtid waxaa ka muuqda dib u dhis ballaaran oo xoogan. dhaqaale intee la-eg ayaa kaga baxay, muddo intee la-egse ayaa qabataan dhismahan? runtii saad ka warhaysaan, safaaraddan Soomaaliya waxaa la iibiyey 1989 ayaa gurigan aan hadda joogno
oo runtii ah dhul Soomaaliyeed xilliga ayaa la iibiyey. Runtii waxaan aad runtii markastaba runtii ilaahay uga baryaynaa oo aan leenahay ilaahayna ha u naxariisto qabrigiisana waasac Allah ka dhigo. Labadii danjiro iga horeeyay oo meesha ku geeriyooday runtii wax weyn ka soo qabtay intay dalkan ka ahayeen danjiro, khaasatan Cabdullaahi Xasan oo muddo dheer runtii waddankan joogay. Ilaahay ha u naxariisto. waxaan ummadda Soomaaliyeedna runtii u weydiinayaa in markasta oo la xasuusto in loo duceeyo. runtii aabbo Soomaaliyeed buu ahaa. waxaa kaloo runtii aan meeshaan kasoo shaqeeyay danjir Cabdiqaani, isagana ilaahay ha u naxariisto. runtii howlo badan oo muhiim ka soo qabtay. saad ka warhaysid, anigu waxaan runtii safaaraddan kusoo biiray muddo hore, muddaan ka shaqaynayay. kadib waxaa la ii bedelay inaan noqdo qonsulka guud ee Jiddo. waxaan dib ugu soo noqday safaaradda 2021 markaan imid. runtii waxaan u mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala, uma madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, oo runtii fursad ii siiyey maanta inaan dalkan ummadda Soomaaliyeed ugu adeego, aan khaadim ka noqdo ummadda ugu adeego. anigoo marka ka duulaya dardaarankii madaxda sare ee dalka ugu horeeya madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibaddaba, waxaan runtii u istaagay markii aan soo noqday in runtii meesha aan ku shaqeynayno ama dalka Soomaaliya adeeg loogu qabanay inay noqoto meel aad ugu habboon in Soomaali loogu shaqeeyo. anigoo fulinaya dardaaranka baaxadda leh ee ahayd in Soomaaliya astaanteedii meel kasta ay joogtoba in runtii siday mudan tahay runtii in loo soo celiyo, ayaa waxaan go'aansaday in runtii xafiiskan aan maanta aan joogno oo in dayactir runtii lagu sameeyo. muddo dheer ayaa waxaan ka shaqaynaynay sidii xafiiskan u noqon lahaa xafiisyada caalamka ka jira mid la mid ah. runtii duruufo badan baa dalka ka jira, ama gudaha hala joogo ama dibaddiisaba hala joogo, duruufaha way iska badan yihiin. laakiin ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay in runtii dayactirkan maanta inaan soo gabagabeynay. waxaa runtii noogu yimid oo booqasho rasmi ah dalkan ugu yimid ra-iisul wasaaraha. asaga ayaa xariga ka jaray furitaanka runtii goobta maanta aan joogno. waxaan rajo weyn ka qabaa insha Allah in maalin kastaba in qayb lagu sii dari doono ilaa guriga dhan uu noqdo guri runtii aad u qurxoon oo u qalma runtii meel lagu adeegi karo ummadda Soomaaliyeed. Saacad Safiir, daawadayaasha sida muuqaalka ay ka daawan doonaan, waxaa haddeertaan dhismihiisa uu dhammaaday qaybta jaaliyadda loogu adeego ama jaaliyadda Soomaaliyeed lagu sii adeegyada u baahan yihiin markay safaaradda yimaadaan. iyadana qaybtaasi waqti badan miyaan ugu qaadatay inaad dhistaan mise waa soo kobcaa? runtii markii aan gabagabeynay dhismaha aan maanta aan joogno oo ah xafiiska uu ku shaqeynaya danjiraha, waxaan runtii isla markiiba haddana u istaagay in aan ka shaqeeyo goobtii loogu shaqeyn lahaa dadweynaha, khaasatan jaaliyadda Soomaaliyeed ay ku nool dalka Masar. goobtaasi oo runtii aan idinkuba saad aragteen ay tahay meel casri ah, aadna runtii loogu shaqeeyey. muddo dheer ay runtii nagu qaadatay inaan runtii goobta aan soo gabagabeyno adeegii loogu baahnaa in lagu qabtana loo diyaariyo. waa meel runtii aan ugu talagalnay in loogu adeego jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar. waa meel aan runtii ka fiirinay standardka safaaradaha dalkan jooga standard la mid ah inay noqoto. saad ka warhaysid Mawlid, safaaraddu waxay astaan u tahay mar kastaba ay ka tarjumaysaa dalka Soomaaliya. marka dalka Soomaaliya markii dad ajaanib noo yimaadaan ama muwaadinka xataa adeega loo qabanayo uu safaaradda dan uga soo baahdo ama adeeg uga soo baahdo, waxaan runtii ka tarjumaynay in safaaradda Soomaaliyeed in sida dalka uu soo kabcday ee dowladnimadii u hagaagtay, horumar badan loo sameeyey, in safaaraddan ay ka tarjunto adeeggaa la qabanayo. Saacad Safiir, tan iyo waqtigii aad timid ama lagu soo magacaabay safaaradda Masar, waxaad ku dadaashay in deeqda ay bixiso dowladda Masar ee walaalaha aan nahay aad kordhisid oo aad isku xirtid dalkii Soomaaliya iyo Masar. haweene dhowna oo lasoo dhaafayna waxaa yimid dalkan soo gaaray ku dhawaad 200 oo arday. dowladdan Masar waxay bixisaa deeqa waxbarasho. tiro ahaan inta rasmiga ay siiso Soomaaliya ma noo sheegi kartaa?
waad ku baahsan tahay. Waxaan runtii kor istaagayaa waxay tahay xiriirka Masar iyo Soomaaliya ka dhexeeya waa xiriir soo jireen oo saan horeyba kuugu sheegay. Waxaan goobtaan rabaa inaan ugu mahadceliyo anoo ku hadlayo magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed iyo magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweynaha dalka Masar Faqaamta Ra'iis Cabdilfataax Siisi, oo runtii marka la isoo magacaabay is araggeena ugu horeeyay waxyaalaha aan kala hadlay ay ka mid ahayd in dalka Soomaaliya in maanta uu u baahan yahay in guryo la dhiso inay aada u sahlan tahay. In dal burburay maadaama aan nahay 40 sano aan runtii burbur ku jirnay, dadka Soomaaliyeed inay u baahan yihiin maanta baahi badan u qabaan in aqoonta runtii laga garab istaago. Wuxuu runtii iga ballan qaaday in aqoonta ay naga garab istaagayaan, khaasatan waxbarashada jaamacadaha iyo master degree-ga iyo doctoraadaba. Markaan imid saad ka warhaysid howl dheer kadib waxaan ku guuleysanay in kor loo qaado deeqda waxbarasho aan markaa horey u haysanay. Deeqda waxbarasho aan horey u haysanay waxay ahayd 200. Marka aan shaqada la wareegnay waxyaalaha ay runtii aan ilaahayna runtii aan ugu mahadcelinayn waxaa ka mid ah in deeqdana loo kordhiyay ay gaartay 350 in loogu kordhiyay. Totalkaan haysano guud ahaan ama tirada guud ahaan haysano waxay gaaraysaa 550 oo sanad walba ah. 100 arday waxay ka imaanayaan ama toos ay u tagayaan jaamacadaha Azhar, 450 waxay toos u tagayaan jaamacadaha xukuumiga ah ee wasaaradda waxbarashada Masar ay hoos yimaadaan. Runtii waxyaalaha aan isleenahay muddada sanadka aan joogay runtii guulo badan baa laga gaaray ama safaaraddu ay guul ka gaartay. Waxaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in runtii caqabadihii haystay ardaydaasi ee waxbarashada la siiyo ee ka daahi jiray viisooyinka ama ay suurtagal noqon weysay in sanadka ay yimaadaan. Waxaan runtii ku guuleysanay in caqabadahaasi oo dhan xal loo helay. Dadaalo dheer aan ku bixinay iyo garab istaag aan ka helay dowladdeeda oo madaxda Soomaaliya oo dhan ay arrintan runtii garab istaag ballaaran naga siiyeen sidii caqabadahaasi loo tirtiri lahaa. Guulahaasi kadib waxaa suurtagal noqotay in ardayda Soomaaliyeed ee hadda ay yimaadaan. Sida aad ka warhaysid hadda waxaa soo gaaray tiro-koob ku dhawaaday 200 arday iyo arday kale oo gudaha joogtay iyadana fursad u helay in deeqda waxbarasho ay ka faa'iidaystaan. sidaad ka warqabnaba dalka Soomaaliya ama dalkeena waxaad geysay deeq daawo ah oo u taagashay jaamacadda Carabta, waxaana ku wareejisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Bal deeqdaas maxay ka koobneyd? Runtii deeqda waxay ka koobneyd horta waa agabka caafimaadka, gaar ahaan agabka COVID-19. Saad ka warhaysaan waayahan waxaa adduunka kusoo kordhay cudur la yiraahdo COVID-19. Dalkii waxaa ka jiray runtii duruufo adag. Gurmud ayuu u baahan yahay har iyo habeen. Waxaan runtii baaq u dirnay annagoo ka duulayna baaqii u diray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba. Waxaa runtii nooga soo jawaabay walaalahayna Carbeed. Waxay runtii ugu deeqeen walaalahayda Soomaaliya in agab caafimaad ah loo iibiyo. Muddaan ka shaqaynaynay ay ka shaqaynaysay ergada gaarka ah. Ilaahayna wuxuu runtii nagu guuleysiyay in deeqdaasi ay maaragtay gacanteena ay soo gasho. Aniga ayaa waxaan ka raacay Qaahira, waxaan runtii ku wareejinay wasiirka caafimaadka iyadoo runtii dalka Soomaaliya si fiican loogu soo dhaweeyay agabka naga soo gaaray. Saad ka wareysaan walaalahayna Carbeed Soomaaliya inta burburku ka jiray in badan ba ay runtii Soomaaliya garab istaageen. Tanna waxay qayb ka tahay garab istaagii Soomaaliya ay walaalahooda markay wax soo weydiistaan runtii ay ku garab istaagi jireen. Waan ugu mahadcelinaynaa runtii anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed runtii duruufta ay nagu garab istaageen. Waxaan meeshaan baaq ugu jirayaa hadda waqti adag baa lagu jiraa runtii oo waddanka abaara ay ka jiraan oo biyo la'aan badan ay jirto. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa runtii in Soomaaliya Ilaahay inuu abaarta ka kor qaado. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa ama aan u soo jeedinayaa in marka koowaad annaga inaan isku tashano oon Ilaahay barino, baryada Ilaahayna aan aad u badino. Walaalahayna Carbeedna waxaan leeyahay dalka Soomaaliya culays badan baa ka jira, baahi badan baa ka jirta, duruuf adag baa ka jirta.
waxaan leeyahay walaalihiina maanta idiin baahan yihiin garab istaaga. waa tahay sacaadka safir marka laga tago inaad tahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Masar waxaad tahay wakiilka joogtada ururka jaamacadda carabta mar walbana waxaad qayb ka tahay shirarka ama kulamada ururka jaamacadda carabta ee ka dhaca xaruntooda Qaahira ama dalalka kale ee Carabeed. innaga Soomaali ahaan maxay nooga dhigan tahay inaan qayb ka nahay ururka jaamacadda carabta? waa horta saad ka wareysaan wadalad weeye oo ay iskugu yimaadeen oo urur ay iskugu yimaadeen dowlado. annagu sidaad ka wareysaan taariikh ahaan waxaan ku biirnay ururka jaamacadda carabta 1974 runtii Soomaaliya markay kusoo biirtay ururka jaamacadda carabta waxay runtii ku dhaxlahayn gudaha ururka jaamacadda carabta basamaad aad muhiim u ah. waxay Soomaaliya dowladda Soomaaliya markasta ay tahay dowlad aad u firfircoon oo runtii qadaayaadka ka jira gudaha carabta runtii garab istaag buuxda muujiya. waxyaalaha runtii aad loogu doodo oo ay Soomaaliya mowqifkeedu uusan ismarna isbedelin waxaa ka mid ah arrinta walaalahayna Carbeed ee Falastiin waan markasta garab taaganahay. Soomaaliya waxay qayb muhiim ka tahay madaladaas iskugu yimaadeen dalalka Carbeed waxa looga hadlo ama laga aaysado ama markasta laga doodo waa qadaayaadka ka jira dalalka Carbeed. Soomaaliya waxay ka mid tahay dal ka madax banaan duquud khaariji ah. markasta Soomaaliya waxay maaragtay u taagan tahay har iyo habeenba in mawaaqiifta Carbeed in meel kasta inaan ka taageerno aan runtii muujino inaan walaalahayna Carbeed aan garab istaaganahay. waanu mahad celinaynaa iyaguna sidoo kale aad bay runtii noo taageeraan qadaayaad badan runtii dalka ka jira ayay runtii ugu garab istaagaan. marka goobta waxa la isugu yimaado waxa weeye waxyaalaha guud ee wadamada carabta ka dhaxeeya sidii looga aysan lahaa ayaa goobta la isugu yimaadaa. annagu shirarkeedii si joogtaan ugu qayb galnaa. Soomaaliya waxay runtii waqtigii ugu dambeeyay 2019 waxaan haynay hoggaanka golaha wasiirada Carabeed oo runtii wax badan aan kusoo kordhinay inta aan hoggaanka haynay. waxaad dareemi kartaa marka in Soomaaliya inay kusoo noqotay matalaadii caalamka ay ka matali jirtay goobihii looga baahnaa. goobahaasay qayb ka tahay jaamacadda carabta. waa tahay sacaad safir tan iyo intii aad shaqada la wareegtay oo hadda laga joogo muddo sanada ku buuxsantay waxaa isku soo dhawaasho isku xirnaan aad iyo aad u wanaagsan ka dhexeysa safaaradda iyo jaaliyadda ardayda. waxaana sidoo kale markii ugu horreysay aad samaysay mareegta safaaradda kaasoo fududay isku xirka. warbixin guud naga siiyay xiriirka ka dhexeeya jaaliyadda ardayda iyo mareegta qorshaha aad ka leedihiin. runtii waa wax aad runtii ii farxad gelinaya in maanta ay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo dadweynaha Qaahiro ku nool in safaaradoodii ay ku xiran yihiin. saan hore kugu sheegay safaaraddu waa xarun loogu talagalay inay u adeegto muwaadinka Soomaaliyeed. ma ahan xarun loogu talagalay in muwaadinka Soomaaliyeed lagu ciqaabo. anigu markaan imid waxyaalaha aan runtii tiirarka ka dhigay waxaa ka mid ahayd in muwaadinka Soomaaliyeed inuu yahay horta priority-ga koowaad ee adeega loo qabanayo dalkan u joogo. iyadoo taa laga duulayo waxaan runtii saaxiibaday kuligada la shaqeeya diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya guud ahaan howlwadeennada waxaan ku ballanay in 5 arrin ay noo noqoto wax lagu shaqeeyo. kow wax kasta oo la qabanayo horta Ilaahay dartii in loo qabto. camal kasta oo la qabanayo in Ilaahay loogu dhawaado oo si ikhlaas ah loo qabto. waxyaalaha ikhlaaska aan ula jeedo waxaa ka mid ah in muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay xataa hadduusan asaga garanaynin in la fahansiiyo waxa saxda yihiin 1 2 3 4 5 si loogu ilaaliyo in mar inta baxo mar labaad inuu soo noqdo mar saddexaad inuu noqdo. taa runtii guulo badan baa runtii laga gaaray in si ikhlaas ah wixii loo qabto. iyadoo ikhlaaskaasina base uu yahay in Ilaahay looga baqo camalkan la hayo. aanan qof mas'uul ama safiir ha noqdo ama consulka ha noqdo ama diblomaasiyad kale ha noqoto inaynan dhahaynin waxaan safiirka dadkii weydiinayo ama kane laakiin inuu noqdo camal Ilaahay loogu dhawaanayo ikhlaas runtii wax lagu sameeyo. number 2 waxaa noo anaga tiirka labaad waxaa weeye in runtii ammaanada la guto. waxaan runtii ku dadaalnay
in shaqada aan hayno inaan u ognahay inay tahay camal ammaano nagu ah oo runtii la iskula xisaabtamayo, berina la isweydiinayo, adduunkana la isku weydiin karo, aakhirana la isku weydiin karo. marka ammaanadaasi inay waxaan ammaano yihiin in horta inaan ognahay oo titlekan maanta lahayo ama xafiiskan la fadhiyo in ammaano ay tahay, ummadda in loogu shaqeeyo inay tahay shay waajib ah. arrinta saddexaad ama tiirka saddexaad aan runtii ku shaqeyno oo aan isleeyahay wax badan buu runtii ka fududeeyey caqabadihii dhex taagnaa jaaliyadda iyo safaaradda waxaa ka mid ah in cadaalad lagu shaqeeyo, si sinaan ah in adeegii loo qabto, in ardayga Soomaaliyeed ee safaaradda yimaada in waxa loo qabanayo cunuga aad dhashay adiga oo safiir ah ama diblomaasi ah ama howlwadeyn safaaradda ka ah, cunuga aad dhashay adeega loo qabanayo iyo ardayga banaanka ka yimid ama hooyada Soomaaliyeed ee meesha adeega u timid in isku si loogu sameeyo. taa marka waxay runtii astaan fiican u noqotay in dadka Soomaaliyeed inay dareemaan meeshan inay tahay hooy ayagu ay leeyihiin isku si loo qabanayo, adeega loogu qabanayo. arrinta afraad oo runtii muhiimka waxaa weeye oo aan runtii tiir noo ah oo aan ku shaqeyno oo kolleegayga ila shaqeeyana ay aad runtii ugu fikiraan waxaa weeye in waastada lala dagaalamo. saa ka warhaysaan dalka 40 sano soo burbursanaa, ku dhawaad 40 sano burbursan yahay. maadaama dalkeena 40 sano ku dhawaad burbursan yahay, wax kasto waxa way kalsooni daro badan baa jirta dadka dhexdeeda ka jirta. kalsooni daradaas waxay abuurtay in qofka in markuu meel u imaanaya ama adeeg uu ka rabo in intuu tago in wixii aan loo sameynin inuu aamine uu qofku u baahan yahay mar kastaba inuu qof soo kaxaysto, ama ha noqdo xildhibaan ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo qof kale title haysta. taa marka anagoo ka duulayno oo aan rabno dadka inay kalsooni helaan, waxaan runtii tiir ugu dhigay in waastada lala dagaalamo, inuusan qofka qof u baahanin. qofka muwaadinka Soomaaliyeed adeega safaaradda uu kaga baahan yahay in asagoo socdo intuu yimaado in loo dhameyn karo kalsooniyaha in la abuuro. runtii guul weyn baan ka gaarnay, waad aragteen runtii idinka jaaliyadda iyo dadkii la joogo wareysta. waxyaalaha kale aan runtii aan isleeyahay maanta waa xaqa gareyseen oo muddada sanadka ay joogtay oo ku guuleysateen. waxaan isleeyahay waxaa ka mid ah in ardaydii Soomaaliyeed ee Qaahire joogtay ee mashaakilaadkii markaan imaanay runtii arday badan waxaa jirtay problemaad kala duwan haystay oo runtii saaxiibada iga horeeyeen wax badan ay ka qabteen, laakiin annagu aan xoojinay in runtii mashaakilaadkaasi arday kasta inta yimaaday mushkiladiisa uu sheegtay loo soo gudbiyay xafiiska ee qofka qosaysay lagana shaqeeyay sidii ilmahan dhalnay aan ugu shaqeynay arrimahooda in loogu shaqeeyo. taana runtii guul weyn baa laga gaaray, waxayna daliil u tahay maanta sida aad aragteen ama aad ka warhaysaanba in caqabado badan oo markaan imaanay ku dhawaad 200 oo arday ku dhawaad haysteen in maanta mashaakilkooda inuu dhamaaday oo ay aad u soo yaraatay mushkiladooyinkooda dhammaan. waxaa marka kale aan runtii astaan ugu dhignay ama tiirka shanaad oo aan ku shaqeyno waxaa base u ah inuu yahay hoygan hoy Soomaaliyeed inuu yahay, Soomaalinimo in lagu shaqeeyo. dadka inaan la kala saarin la dhihin ninkan gobol hebel buu ka yimid ama tuulo hebel buu ka yimid ama reer hebel waay ama reer hebel. maadaama caalanka Soomaaliyeed xaruntan uu yaalo in ay tahay xarun Soomaali ay leedahay, Soomaalinimo loogu shaqeeyo, wax qabiil la yiraahdo uusan jirin, cid laga fadilay inaysan jirin, gobol laga fadilay inuusan jirin. taa marka waxyaalaha waxay keentay iyadana runtii qofka safaaradda soo aadayo asagoo og in guri Soomaaliyeed inuu tagay inuu kalsooni ku yimaado. intaasoo la isku soo daray shantaas tiiraan kuu sheegayo waxay abuurtay safaaradda iyo jaaliyadda markii inay isku xirnaadaan, ayna dareemaan gurigan guri uu leeyihiin ama xarun ay leeyihiin inay tahay, ay ku talagalayaan waxay uga baahan yihiin inay u helayaan. waxyaalaha aan runtii aan isleeyahay waa ku guuleysateen muddada yar aad joogtid, aan rajeynayno inaan runtii sii laabno. waxaan abuurnay adeeg u gaar ah maxaa la yihahdaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar, taas oo aan ugu talagalnay qof kastoo Soomaali ah ee dalkan jooga hadduu u baahan yahay in uu soo gudbisto cabasho ama complaint ama wax dhib uu qabo, qaabka uu ku soo gudbisan lahaa. waxaan abuurnay sanduuq oo runtii qofku uu ku ridi karo waxa uu u baahan yahay, ama talaha noqoto qaar ma noqon karto xataa cabasho. qof baa waxaa laga yaabaa inuu nagu kordhinayo wax wanaag ah oo tala ah. waxaan u sameynay sanduuq adeeg u gaar ah oo runtii lagu ridayo waxa uu qofka muwaadinka rabo inuu fariin ahaanna soo gaarsiiyo. waxaan u sameynay WhatsApp u gaar ah oo runtii fariimahan lagu soo gaarsiin karo.
waxaan kaloo sameynay website oo email uu ku xiran yahay oo qofka fariinta u baahan yahay oo runtii kusoo dirsan karo ay nagu soo gaarayso wadada loogu talagalay si degdeg ah ay nagu soo gaari karto. waxaan kaloo xafiiskayga sameeyay sida aad ka wareysateen howlwadeennada safaaradda. waxaan sameeyey xafiisyo gaar ah oo isha ku haya cabashooyinka ama jaaliyadda ha noqoto ama ardayda ha noqoto. runtii waxaa jooga diblomaasiyiin kafaa'a leh aqoontoodii iyo khibradoodii ku filan tahay inay dadka u adeegaan. iyadoo haddana taa jirta waxaan sameeyey xafiisyo dheeri ah oo adeeg u gaaro xafiiska safiirka ka dhex baxaya soo tabinaya ama soo xuuraansanaya haddii ardaydu ama waxay tabanayaan ama jaaliyaddu ay qaar ka mid wax tabanayaan, fududeyn kara in fariintaas safiirka degdeg ay kusoo gaarto. diblomaasiyiinta fariinta soo gaarsiin kara safiirka. xafiisyada aan abuurnay ayaa waxay sameynayaan adeeg inay soo gaarsiiyaan. xafiisyada aan abuurnay waa xafiisyo ku shaqo leh qaabka hadda adduunka u shaqeeyo oo ah in caalamka hadda aad ka wareysaan waxaa loo marayaa technology. marka emailka waxaa kusoo dhacay iyo fariimaha kala imaada whatsappka iyo xafiisyo soo gudbinaya wey. ugu dambeyn waxaan ku guuleysanay in sanadkan ay noqoto sanad runtii laisku caloolfiyo yahay oo runtii jaaliyadda iyo safaaraddu way si qalbi fiicnaan iyo wanaag wax loo qabto. waxaan ka cudur daaranayaa hadday jiraan dad wax cabanaya ama wax tabanaya. way dhici kartaa in runtii dad waxay naga tabanaya inay jiraan, laakiin annagu waxaan qabanayno waa wax niyad sami aan ku qabanayno. waxaan raadinaynana waa inaan wax hagaajino. laakiin qofka u arkay in waxa la hagaajinaya in wax asaga markaa uu ku farxay in ahayn waa ka raali gelinayna. laakiin waxa aan raadinayno waxa weeye waa wax ummadda Soomaaliyeed u ah farxad iyo guul. cid kasto ee arrinka inala fahmi weysay u aragtay in wax sharci la adkeeyay ama sharci meel laga istaajiyay ama dan gaar u leeyahay laga hor istaagay, waxaan walaalo naga raali noqon. laakiin waxaan diyaar u nahay hari habeenba ummadda in loo shaqeeyo. media ama iclaamka waxay ka mid yihiin jaaliyadda iyo bulshada iyo qayb ka mid ah oo ku dhex jiraan. marka waxaa jirta jaaliyadda Soomaaliyeed naanees gaar ay kula baxeen haddii kusoo gaartay oo ah Ilyas Bile. markii arkeen dibliska balaaran safaaradda ka sameysay waliba laba qayb oo kala duwan 4 dabaq madaba ka kooban tahay safaaradda qaybta xafiiskaaga iyo qaybta hoose jaaliyadda loo adeego. waxayna badankooda aysan ogsoonin waqtiga aad nasatid maadaama waa arkeen subaxdii waqti warna xaadir ku tahay xafiiska safaaradda gelinka dambe ama haweenkii qaybaha hore ilaa 12 habeen ma ku gaartid. ma jirtaa xilli gaar ah runtii horta magaca ay jaaliyadda la baxeen waa magaca aniga igu cusub. waxaan anigu aan aaminsanahay naanees horta weli leeyma sameynin. magaciigu waxaa la yiraahdaa Ilyas Sheekh Cumar. markaan wax baranayay ilaa hadda waxaa lagu yaraa Ilyas Sheekh Cumar. runtii waxyaalaha dadku ay u dareemaan inaan hari habeen taaganahay waxa weeye waa laba arrin. anoo runtii ka amba qaadaya dardaarankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo madaxda qarankaba. runtii waxaan markastaba isbarbar dhigaa Soomaaliya waa la gaari doonaa waqti aan nasano. laakiin maanta duruuftaan ku shaqeynayno nama siinayso in nasasho badan la sameeyo. saad ka waraysid wadanka markii gudihiisa la joogo xuduudiisa waxaa ilaaliya askar baa ilaalisa. annaguna waxaan nahay xuduudda dalka dibadiisa ka ilaalina. marka taa waxay inta badan nagu kalifaysaa hari habeen inaan soo jeedno oo aan dhaqdhaqaaqi la socono wax isbedelaya waxa socda adduunka. runtii safiirku waa sarkaal dalka dibadiisa jooga ka ilaaliya dalka wax kastoo kusoo wajahan. taa marka waxay nagu kaliftay aniga iyo runtii ragga ila shaqeeya oo kuliga ila shaqeeya. subaxii waxaan soo galnaa aroor hore. waxaa laga yaabaa mararka qaar inaan safaaradda ku dhex ku dhex qadeeno ku dhex casheeno. maxaa la yiraahdaa 12 iyo 1 habeenimo inaan shaqo ku gaarno. ragga ila shaqeeya runtii aad baan ugu mahadcelinayaa inay runtii ay aqbaleen in runtii dalkooda inay u shaqeeyaan har iyo habeenbo. taa waxaan nagu kalifay waxay tahay mas'uuliyadda nala saaray. waxaan runtii ilaahay ugu dhawaanina waxay tahay amaanadaana loo dhiibay inaan si sax u gudano. waan arkay jaaliyadda in badan markayna soo wacaan ama markay adeeg inoogu baahdaan waxay noogu yimaadaan anagoo safaaradda dhex taagan. waan ogahay in la isweydiinayo goormay nastaan.
waxaan nasanayna dalkeena markuu dhugaha cagaar dhigo ayaan nasanayna insha Allah. insha Allah. ugu dambeyn Sacaad Safir maxay tahay fariinta aad u diraysid ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda fariintaan u diray ummadda Soomaaliyeed runtii waa fariinta qof kastoo mas'uul ah u diri karo. runtii waxaa muhiim ah qof kastoo Soomaaliya dalka dibadiisa jooga waa safiir. ma aha safiir kaliya inta ku dhex jirta mabnahan ama xaruntan kaliya ku dhex jirta. qof kastoo naga mid ah waa safiir, wuxuu dalkiisu yahay safiir. waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen ama ay ahaan jireen ay haddana yihiin runtii dad akhlaaq badan, wanaag badan, is ixtiraamo. qof kasta Soomaali qofka kale walaalkiisa garab qabta, caawiya, ka ilaaliya mashaakilka iyo dhibka. waxaan kula dardaarmayaa in runtii gacmaha la isku qabsado, aadna loo muujiyo Soomaali inay dadka shacabka Soomaaliyeed inay yihiin dad aad u qiimo badan, nadaafad badan, akhlaaq badan, asturan. aad baa mararka qaar runtii ugu walwala marka maqlo waxyaalaha qaar dhaca. marka waxaan runtii kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed Soomaalinimadii in la soo celiyo. wax kasta waa soo tijaabinay, qabiilka waa la soo tijaabiyey, xarakaad waa la soo tijaabiyey. wax Soomaalinimo ka hooseeya wax waa lagu noqon waay. marka maadaama ay tahay wax Soomaalinimo ka hooseeya inaan wax lagu noqon karin, in Soomaalinimadii inaan ilaashano. qof kasta oo Soomaali annaga inaga mid ah haddii calankan gadaashay yaala dhibac madow uu ku rida, maalmo kadib xidigtaa waxay isku bedelaysaa xarun madow. laakiin haddii qof kastoo naga mid ah hadduu calanka ka ilaaliyo dhibacda madow uu ka ilaaliyo, calanka nadiif buu noo ahaanaya. calankan waa astaanta keliya aan leenahay, wuxuu ka tarjumayaa Soomaalinimadeeni. waxaan kula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed walaalow qof kasta oo dalka dibadiisa jooga waxaad safiir u tahay dalkaaga, waxaad matashaa Soomaali, waxaa lagaa ursanayaa Soomaalinimo. waa in Soomaalinimadu ay kaa muuqataa. qofka Soomaaliga waxaa lagu yaqaanay qof wadani ah, qof geesi ah, qof akhlaaq badan, qof saqi ah. sifaadka ee islaamka lagu tilmaamay dhan waxa laga heli jiray dadka Soomaaliyeed. waxaan kula dardaarmayaa runtii dardaarankaasi 1 2 meeshaan maanta baaqo ugu daray jaaliyadda Soomaaliyeed iyo ardayda ku nool dalka Masar. saad ka wareysaan adduunka waxaa soo kordhay xaalad caafimaad oo runtii aad iyo aad qatarteeda u wadata. waxaan horta kula dardaarmayaa in talooyinka caafimaad ee hay'adaha caafimaadka bixinayaan in loo hoggaansamo, aad iyo aadna loogu hoggaansamo. waxaan ardayda Soomaaliyeed ayagana kula dardaarmayaa fursadaha deeqda waxbarasho ay heleen ay ku heleen magaca Soomaaliyeed inay runtii aad u ilaaliyaan. deeqda waxbarasho Soomaaliyeed ay heleen arday badan oo Soomaaliyeed adiga kula mid ah, aniga ila mid ah ayaa baahi badan u qaba aan fursadaas helin. waa in fursadaasi ay noqoto fursad goldi ah ama dahab ah, aad loo ilaaliyo. waxay ka tarjumaysaa in arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho helay ee wax bartay ee dalka dib ugu noqdo. dalka dib u dhiskiisa waxay ka tahay qayb muhiim jiddan ah. sidaa darteed waxaan ardayda Soomaaliyeed markasta aan arkana kagala hadlaa maantana aan baaq ugu diriya waxay tahay war mustaqbalka la sugayo inuu soo kaco waa adiga. wadanka in wax aad ka badbaadisid adaa laga sugaya. waa inaad adigu noqotaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya maanta inuu badbaadiyo qayb weyn ka noqda. si taa loo gaaro waxaa loo baahan yahay markaa wax baranaysaan inaad si sax waxbarashadii saxda u samaysaan. dal waxay joogtaan runtii waxbarashadiisii aad u fiican tahay, fursado badan ay ka jiraan, aqoon kororsi kale oo ardayga heli karo, trainiye kale uu heli karo ama tababaro kale uu heli karo. wuxuu heli karaa in maaragtay fursado kale aqoontiisii wax ku kordhiyo. walaalow qofka la sugayo maanta inuu dalka wax ka badbaadiyo ama xilalka maanta la joogo dadkii bedeli lahaa waa adiga wax baranay. waxaad noqotaa qof dalkii wax u baranaya, berina u diyaar garoobayo in Soomaaliya xukunkeedu uu qayb muhiim ka noqdo. waana mahadsantihiin. waa mahadsantihiin Sacaad Safir. waxaan kaaga mahadcelinayaa fursad qaaliga ah nasiisay.